بسم الله الرحمن الرحيم. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayadoo ka duuleyso mas'uuliyadda ka saaran hagaajinta caafimaadka bulshada waxa ay soo kordhisay xafiis u gaar ah xakamaynta cudurka cagaarshowga oo loo yaqaan hepatitis. xafiiskaasi wuxuu wax ka qaban doonaa la tacaalidda cudurka cagaarshowga, yareynta faafitaankiisa iyo wacyigelinta bulshada. wasaaradda ayadoo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ee kala shaqeeya horumarinta caafimaadka waxaa ka go'an wax ka qabashada cudurka cagaarshowga qaybihiisa kala duwan. wax ka qabashada waxaa ka mid ah qorista istiraatiijiyadda qaran ee la tacaalidda cudurka cagaarshowga. waxaa ka mid ah wacyigelin iyo tababaro loo fidinayo shaqaalaha caafimaadka dalkeenna oo ka mid a dalalka sida ba'an uu u hayo cudurka cagaarshowga. waxaa laga maarmaan ah inaan ka wada shaqeyno dhammaan bulshada iska kaashato sidii lagu yareyn lahaa cudurka cagaarshowga, bulshadana ay u ogaan lahaayeen qaabka looga hortagi karo iyo qaabka loogu kala qaado inay ogaadaan in wacyigeli aad ay muhiim u tahay. hadafka ugu weyn ee wasaaraddu ay ka leedahay soo kordhinta barnaamijkan waa dabargoynta cudurka cagaarshowga ugu dambeyn 2030. aad baa mahadsantihiin.